ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Xaaji waxaan doonayaa ummadda Soomaaliyeed inay ila ogaato ceebkiisa iyo waxa aniga noloshayda igu soo sameeyay 7 sano ayaan isqablay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Xaaji waxa loo yaqaanaa dabcasay 7 sano aan isqablay waxaan kala soo kulmay nolol aad u xun nolol aad u qab daran in kastoo dadkayga talkayga ay iga fureen markii ugu dambeysay finally markii talkayga ay iga fureen muddo kadib waxaan go'aansaday inaan arrintan aan anigu kiid gareeyo laakiin waan kiid gareyn waaye waxaan u kiid gareyn waayay waxaan arkay odaygii oo ka hadlaya wax isfuula iyo wax isfaaran habeen kasta 7 sano aan qaday dadka aan ku qabo waxay tahay aniga weligiin iiman noqon oo markii ugu horeysay habeenkii ii aqaldeeyay ayuu wuxuu yiri walaal anigu waxaan rabo noloshaan rabo waxaan doonayaa inaan iga fahanto markaan ku leeyahay tahay noloshaan kula fahmayaan ii sheegay muddo asbuuca markaan ku wareeray oo anigu aan isku dhaxyacay ayuu waxaan ku iri walaal maxay tahay nolosha aad doonaysid maxay tahay noloshaan iga rabtid markaas ayuu wuxuu ii sheegay inuu yahay nin wax matara ah oo aan naag waxba ka tari karin markaan weydiiyey maxay tahay waxa sidan kaa dhigay wuxuu ii sheegay inuu yahay ragga jecel in gadaal laga isticmaalo anigu gabar baan ahaa gadaalna iska isticmaalo iyo waxaa ma garanaynin waxa dhaliya diinku waa ii cusbaa markii aan weydiiyey aan ku yiri maxay tahay gadaal laga isticmaalaya markaas wuxuu yiri adigu macnaha kaama rabo oo nin ma tihid laakiin waxaan doonayaa gacantaada inaan isticmaashid muddo asbuuca bay markaan isku dayay inaan u sameeyo kabacdi waxaan arkay inaysan ii shaqaynaynin bay 40 jir meekinaya oo leeyahay anigu waan naag baan noqonayaa waan ku meekinaya anoo dumara oo aan garanaynin waxaas oo noloshayda garana aan soo arkay waan u dulqaadan waaye waxaan go'aansaday inaan ku iraahdo walaal iska kayfur markaan ku iri dabcasayr iska kayfurna wuxuu yiri dabcasayr kuma furayo 7 sano inaa meermeerinay oo hadda meel meermeerinay waqtiga markuu iga qaaday markii dambe talkayga waxa iga furantay ninka dabcasayr la yiraahdo waxa la yiri wax qof dhibaato ma dhigan waxaan maanta ummadda Soomaaliyeed ugu soo gudbinaya arrinta odaygii oo waxaan arkay kaniis iyo wax isfuushan ka sheekeynaya habeen imaalin war adiga 40 jir meekinaya 40 jir raba in fotoga laga sareeyo 40 jir raba kule waan ku qorsanayaa aniga waxay 40 jirkaas goormuu ka hadlaa inuu yiraahdo dad baan u sheegayaa si isku raaxaysan war marka hore jacaylku ka bilowday gurigaaga adigu ma taqaanaa raaxada marka hore ma taqaanaa adigu sida naagtaada isticmaalo lahayd adigiiba doonaya in lagu isticmaalo adigiiba waxa leedahay hal isticmaalo sideebaad ku rabtaa inaad dad u sheegtid sida isku isticmaali lahayn walaalo aniga magacayga waxa leeyahay Amal Cabdullaahi Kayse waxa maanta halkan iga qiimisiyo waxa waaye 7 sano ayaan cabursanaa waxaan u cabursanaa 7 sano ma aan lahayn awood aan ku hadlo awooddaas oo ah macnaha kama aan hadli karin dhibaatada ay haysatay markaas dhibaatadaas oo aan oga hadli karin dhalinyarnimo ay haysay iyo dhibaatadaydu aan sheegi karin markaas maanta fursad baan ku helay inaan ninkaas aan ka sheekeeyo dhibaatada aniga noloshayda ii deysay